markay arkaan maaragtay iyadoo ummad faraxsan oo maaragtay yara xaalad wanaagsan ku jira way murugoodaan way cadhoodaan qoladaas waa gaalada Itoobiya iyagoo muslimiintu maaragtay ay rabadaantii maaragtay isu diyaarinayaan ciidii hal rabadaan hal gaadhay toddobaad ayaa waxay sameeyeen qalalaase magaalada la Qundara weeyaan qalalaase weyn baa la sameeyay waa la weeraray muslimiintii 40 qof ayaa laga dilay muslimiintii maaragtay Itoobiyaanka halkii magaalada Qundara waxaa lagu mamnuucay in salaada ciid ay muslimiintu ku tukadaan sanadka 2022 salaada ciid inay tukado ciid al-fitr waxay ahayd in ciidii dambiga sameysay in la ciqaabo laakiin ma ahayn in muslimiinta salaadooda laga hortaago معلش لقنا مسلمينتي إثيوبيا joogay magaalooyinka kale ee dalka ay waxay ku dadaaleen inay salaadoodii ciid maaragtay ku gutaan oo farxadii ciid laga hor istaagay magaalada Qundara ay ku gutaan baldaawo waxay isku soo baxay kumanaan dad lagu qiyaasay oo maaragtay muslimiinta Itoobiya oo magaalada Soomaaliya magaalada waxa la istaasku weynaayay dawladda u qaadi waayay baa leeyahay hani badni ma sha Allah wax qabaa oo kuwaas طبعا magaalada Itoobiya aad iyo aad bay arrinta maaragtay mar labaad uga xanaaqay wax islaayeen muslimiinta inta kale oo cabsanayaan maadaama magaalada Qundara aad ku dhibaataysay laakiin taasi ma dhicino muslimiinta way soo baxeen magaalooyinka kale dadka maxaa dhacay askartii lagu yiri shacabkan muslimiinta ilaaliya ee salaada tukanaya ay askartii ay caradii iyo ciilka u qabaan islaamka dartii way sadkeen kari waayeen kadib waxay sameeyeen way xabadeeyeen muslimiintii oo maaragtay salaada tukanaya ay xabadeeyeen شوفوا saas u xabadeeyeen muslimiintii salaada tukanaya meediyaha waxaan ku maqlaynay iyadoo la leeyahay muslimiintii salaada ciid tukanayay iyo ciidanka Itoobiya ama booliska Itoobiya ay isku horimaadkeen been weeyaan wax isku horimaad leeyahay maaha ee waa shacabkii tukanayay muslimiinta aha ay weerareen booliskii maaragtay kristaanka aha xaqiiqada dhabta waa sida laakiin meediyaha ma tusayo maaragtay arrimo wajiga ay leeyihiin marka inagu ka muslim ahaan oo waliba diris la ahaday Soomaaliyahay waxa laga rabaa in walaalaheed dareesino inay kaligood aanay hayn aynu la joogno aynu u dhownahay waayo Itoobiya waa Falastiinta waxaan u jeedaa waa Israa'iisha Afrika muslimiintu waa boqolkiiba dhowr iyo konton Itoobiya bulshada ku nool bikayeen haddana xilka uma soo dhawaan karaan iska dhaaf inay soo dhawaadaan baahiyooda ugu yar meel